laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaaliya waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo markaasuu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo suu yiri maxaa kugu dhacay niyo waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curada oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhintay marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaan masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaan suu yiri oo maxaa kugu dhacay wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subax waagu markuu bariyay aduu nus saac meelahaas baan reerku meeshu deganaa ku soo beegnay roob baa habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wiiq ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaay nool ama soo ku jira dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigii awrtii xataa dhimatay marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saatay u jiifaan qortay waxay ku hayaan macaashi dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo rarooy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay oo dhagay mid xalad dilaaceen qarax meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markaan ay rabeen inuu ka noolsaa meydkii tiriyeebiya dadkii baan fiishay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ah baan waayay kaadna mala roob baaday meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan way wadiyay ayadoo geed hoosta ku socsan waa fiishay gabadha way nooshay ma dhiman ayadoo way socsan tahay qatii baan soo kaxaystay geeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhii baan u sameeyay meelaan oo darga camala baan saaray qatii baan la dhaqaaqay وانا سجال كذي بعد بعد الواي ما أني كوتم بان ولا أبوي يرتقي وأستاذ بطن يبي مستحيل وحده عادي مشوا جوار عصر يدور ده وهو هستيت سعي بر ميلا هاسا بان وبيجو كوي بدوي وبي ميل مران كوي آير بان تر جوادنا فول بقبضي كل جي بانا ساعة حتى ما كان سوق بحية كمان فكرين بيجي وجوادنا أما كوجو فول تايو وح سكين يمنا موت وحير مرة لما جوادي فوش قبضي رتقي بان كده شيء ويل بيد شيء لكن نصيب درة وحن حدونك كجو يمله جيد بان كفولي بحلات كسر قاستي بحلات كان كجشر حدون وأنا والله جاي بيني عاد وعدك لكن إنك كشاكيني وأنا عاد وشاكيني يا سو وأنك البلايا إسعاف عرب يعني وما دعوا لي البلايا وغير مركي جوادي أم شيء وحنا أفكنا ومسين جوادنا ورئيسنا يودن بنوع كلاي تاعي وجواد حلا ورق وكل عدد ضد وركضت وطن كدنتين waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratiga baan bireeyay ayr baratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday gabadhi markay fiicnaatay xogaa indhihi kala qaaday cadkii cuntay baan irbuy ratiga noo kala yahay ilaa meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baa 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan irbuy oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalay inta qaadatay cheegaan wabiga daq gabadhi mar alla markay istir wabiga aad u taabsiisay jeerigaankii baalkii cheegi yaxaas baa ku dhigtay markaas aan waxaan arkay cheegi iyo xirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii yaraaba ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofkii oo hilibka u qaliyay gabadha ahayd asagu nolol kuma jirto wixii ilmaha yar baan iska qaatay markii aan gabadhan waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduubay saa u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso arin meel daaqay wiilkii yaraa oo aan watay oo aan asna nafku ku jirin hooyadina ma noodin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baangidii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saacad ugu gashay wuu qaawan yahay asagoo ilmaha yarka wuxuu haystay maraba ku duduubay ilmu ku duduubay baan waxaan ku warhelay bahal ulaho igu dhagtay oo igu dhagtay kor baan u fiirshay gabar inaan ay ulaynayso waxay tirbalaayada reer ariga dhex dhagtay maxaa saas markaan u istaagay oo ay yartay inaan qaawanahay bayse siidays way carar 5 daqiiqo kadib waa kuwan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tirbalaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa mara isaaray biyo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay biyo uleysay wada odaygu markuu cuntay siyaasada ila hadlay muu tagay
يوشيخ ينمو سوى كحيو قبل والليقوم يهريو همين كيبا أقل باليقيب حد يربو يري نين كان مركو وشيكين أيو دور يلا باطن الموض يحول ملايين عن لايه marka waligay dhibaato igu ma dhacan laakiin maalinkaas cirib saartay taasi waxay suuraad ka bixinaysaa adduunka noloshu inay tahay aynaan iska sahlanayn marka noloshaada ay kugu dhicin kartaa noloshaas marka waa mid naftaada ku dhacday waxa jiri karta inay balaayadu kaaga timaado ama ku dhacdo dadka ku xigay oo waalidka inay ku dhacdo ilmahaaga oo ilmaha kaaga timaado inay kaaga dhacdo xaaskaaga inay kaaga dhacdo qof adiga kugu xeeran dhibaatadaas waa dhibaato gooni oo adiga gooni ku taabanaysa tii horena maxay dhibaato caam dhibaatooyinka marka mar labaad waataan waxay u kala qaybsan yihiin mid waqti leh iyo mid aan waqti lahayn oo iska joogto midda waqtiga leh hal qodob baa la iska ilaashaa inaadan ceeboobin waligii ma maqasheen masiibo iyo magacabo maalin bay baxaan dhibaatadu hadday hal maalin la taagan tahay abaar baa dhacday maalinkaas adigu ha harin waxa laga yaabaa inay bari roob di'i doono haddaad marka maalinka ceeboodid dhibaatadaas waxay u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso dhahaysid war waxaani waa waqti loo waqtigaana xallin doonee aduu caadi iska dhig marka inaysan taas kugu dhicin qodobada marka jira si kooban aan rabnay inaan u tilmaano qofku waxa looga baahan yahay mar alla markii qofku wax ku dhacaan nolosha qayb kamid ah waa keenay ku cuslaatay qodobka ugu horeeyo oo raba inuu dhaco qofku waxa weeyaan ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun laana masiibooyinka dhan ilaahay baa keena qofku marka inuu isla marka xusuusto oo inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun mar alla markii kugu dhacdo intee leeyahay rabta masiibadu hal leeyahay waxa laga yaabaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee ganacsi Aisha xadiidka warinaysa waxa laga yaabaa way tiri inta guriga iga danto fariista inuu nabigu dhaho la inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka masiibadu intee leeyahay hal leeyahay qodobka muhiimka qofka waa laga baahan yahay wax